wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta Somaliland mudane Saleebaan Yuusuf Cali Koore ayaa ka hadlay kulan ay iskugu yimaadeen wasaaradaha iyo hay'adaha dawladda iyo wacyigelinta heer qaran. Wasiir Saleebaan Yuusuf Cali Koore ayaa bulshada reer Somaliland uga digay khatarta ay leedahay xogaha khaldan ee laga qaadanayo aalada social media, isagoo wasiirku arrimahaasi arrin kale ka hadlaya waxa hadaladiisii ka mid ahaa oo muhiimadiisu daaran tahay kelmadda wacyigelinta oo ummaddu reer Somaliland aan isleeyahay si weyn bay ugu baahan tahay in waaxda iyo wacyigelinta qaranka guud ahaanba la xoojiyo oo meelo badan taabanaysa sidii ay u sheegeen dhammaan akhyaartii iga horeysay qof waliba wuu dul dhigay in loo baahan yahay oo si qoto dheer oo mug iyo miisaan leh baa looga hadlay aad baan ugu faraxsanahay qof kasta kelmadda uu yiri waana wax aynu runtii maskaxdeena ka soo wada burqanaya oo in loo baahan yahay waarun ila waraadyada dalka khalkhaliyay ama dalka caalamka hadda dib ku haya waxa kamid waxaan la yiraahdo social media ama mass media oo aan lahayn مسؤولية لو راعو iyo xogtii sameesha laga raadinayo oo si dhib yar aan loo helin ama dad badan oo aan mas'uuliyad fikirkoodu mas'uuliyad badan saarayni ay waxay doonaan ka qorayaan dad bay isku dirayaan waxay doonaan bay ku hadlayaan wax beena oo feegay sheegayaan waxa laga yaabaa in dad ilaahay hortiisa u akhristaan dadkaasina ay run u qaataan haddii TV haatan warsiidayo ama jariiradii wax qorto ama idaacadi hadasho reference iyo meel khaladka ay gashay lagala hadlay leh laakiin ummadda reer Somaliland waxa leh social media ma aha waxa lagu soo qoraa run ma xaqiiq ma qof kasta oo wax qoraa ama meesha wax soo dhiga macnaheedu maaha inuu run sheegayo waxaynu u baahanahay inaynu noqono ummad garaadkeedu koray waxaynu rabnaa inaynu noqono ummad rabta inay wada noolaato oo wada dheer sugayso waxaynu noqonnaa inaynu rabno ummad la jaanqaada ummadaha kale ee maanta jira ee geeska Afrika iyo caalamkaba waxaynu nahay ummadan dal aan wali la aqoonsan Somaliland waqtiga aan anigu intaan joogay waxaan ku garanayay inay awal dad kontroosha ama garan kara qofka cadawga u iyo qofka nasteexa oo dad kala garta ayay ahaay laakiin hadda waxaad moodaa in lagu soo dhexdhuuman karo marka la eego sida loo kicinayo iyo sida loo isticmaalayo iyo sida aqligeena loo caayayo intaba inagoo dad intaasa oo meesha aynu wax ka soo qaadnay og sida aqligeena loo caayayo ama wiil yar oo dibad jooga ama wiil yar oo dal kale jooga intuu inoo soo fadhiisto inuu ku yiraahdo halkan cid lagu sameynaya ama halkan cid lagu bedelay oo aqliyada ummadda inta leeg ee waxa sameysay meesha wax ka soo dhaqaajisay taariikhdu ogtahay uu inuu ku yiraahdo institutionskii dalka ka jiray kama war haysa أنا إذن كورو قفكي بلوكيتك دقاح دقايا البابك كحري الصبورة كاني إن قفيرة هذا مال شرمل شوغا أما شوغا مقعيدي أنا إذن كورو وحينا كنت هاي عقلي جين نين كريستنا عدو حبرة وحا هيدا إنو الله شغينو iyo waxa ilaa 1884 aynu la shaqeynay kun 800
iyo 84 ummadda reer Somaliland ay la shaqeynaysay ee wax barayay ee gaadiid barayay ee iskuul barayay ee dhakhtar ahaa Kristan bay ahaayeen ragga halkan wada fadhiya iyo kuwii dalka soo hogaamiyay iyo wixii dhaqaatiir noqday iyo wixii injineer noqday iyo wixii ummadda wax u soo noqdayba ee Kristan baa wax baray no doubt aniga hindi baa wax bari jirtay aan diin baa aaminsanayn hadday doonaan macnaheedu maaha scholarship hadda haddii la yiraahdo 2 qof 10 qof baa scholarship la siinaya ummadda reer Somaliland oo dhan baa isku qabsata xagee loo socdaa ayaa wax baraya dadka hal milyan oo dadka af Soomaaliga ku hadla ayaa dibadaha ku nool sida ay UNDP sheegtay iyo sida UN tu sheegtay baan leeyahay 1 milyan dadka af Soomaaliga ku hadla dadka reer Somaliland waa dadka ugu badan bay kamid yihiin ee dibadaha ku nool xagay wax ku bartaan yaa wax bara waa kuwa 24 hours iyagoo isjiidanaya inoo imaanayeen maxaa loo gaaleyn waay ninka Hargeysa aad og tahay haysta ama Hargeysa oo aynu joogno adeer milyan isba dibadda joogay buu kuwa waaba kor taagan innagii waaba kor taagan waxa weeye ummadeenna qof kastoo inoo ka mid ah waxaan leeyahay inuu caqliga ka shaqaysiiyo oo aan layna misleer garayn oo aan dalka iyo madaxda ummadda layna ku dirin marka la leeyahay bilaadanka waxa laga soo galaa madaxda markii Ottoman Empire-ka uu baaba'ay ama reer galbeedku baabi'inayay cidda meesha kaliya oo ay ka soo galeen waxay ahayd dadkii madaxda ahaa inay u gartaan oo qof kasta u sheegaan inuu isagu gaar madax u noqdo ilaa ay soo gaadhay Yemen baa ugu dambeysay dawladihii islaamiga ahaa 1918 gacantiisa ay ka baxday dagaalkii koowaad ee adduunka oo markii ugu dambeysay ay Turki ku soo urtay marka madaxweynaha la target gareynayo ma aha in madaxweyne Muuse cidi wax ka sheegayse waxa la dhalacaynayaa qarankii doortay iyo ummadii dooratay iyo dadkii isu taagay inta tiradoodu dhan tahay ee ummadda reer Somaliland tii dooratay ayaa caqligooda iyo damiirkooda la maacay sababtoo qof kasto bilaadan caqli buu leeyahay waana la doortay qorrax baynu isu taagay ummadda ayaa la jilcinayaa in fikir kale iyo hawl kale laga dhaadhiciyo marka madaxda la caayo wasiirada la caayo madaxweynaha la caayo golayaasha la caayo waxa weeye madaxa laga dagaalama Soomaalidu waxay ku maamaadaa mas madaxa laga dilaa masku uu dheer yahay aad buu dheer yahay haddii aad maanta oo dhan xagga dambe ka garaacdo xagga hore ayaa saa marba kugu soo boodaya marba meel buu kaa qareeyay laakiin haddaad marka u warso madaxa kaga dhufato dheerarkiisa dambe waxba sheegi maayo haddii hogaamiyaha iyo hogaamiyaasha lala dagaalamo macnaheedu waxa weeye dadka inta kale meel baad ka helaysaa qof kasta oo innaga ina ka midi inuu intaa fahmo weey in philosophy la wado ummadda reer Somaliland duulaan lagu yahay inaynu fahanno weey inaynu u garanno in Saleebaan la caayayo oo wasiirka warfaafinta ama dad garasho badan baynu ahayn dad aqoon leh baynu ahayn dad wax garta oo aan wax loo yeedhin baynu ahayn dad dantooda garta baynu ahayn
dad fahansan meesha laga soo dhaqaaqay baynu ahay hargeysadii shalayto ragga iyaga garanaya ama intayada garanaysa waanu garanaynaa hargeysadii shalay iyo tamaanta waxaan uga yara baxay mawduuca insha Allah kulligeen ducaynu isku ognahay taasina waa iga dardaaran odaynimo aynu noqono dal wada shaqeeya iyo ummad wada shaqeysa iyo ummad wada noolaata iyo ummad is ixtiraamta iyo ummad garata madaxdooda cid inqiraab military ina ku haysataa ma jirtee xisbiyaynu nahay xisbiya madaxnimada lagu yimid oo lagu doorto oo dastuurku waqti buu jideeyay haddii madaxnimo la rabo madaxnimadu meesha Somaliland qofku u soo maraya waa cadda it's clear xisbiyadii baa jira tartankii baa jira waxaa lagu qiyaasaa tartanada ugu adag ee ugu furan inaynu galno oo tusaale inoo ku filantay golihii wakiilada shalaytu tii madaxtooyada ee aynu ku kala dooranay iyo kuwa soo socdaba Subeer Maxamed Maxamuud Subeer Galeyd wararka iftiin Somali TV Hargeysa